sheekh saa'ilkan waxa uu leeyahay waxaad ka warantaa xukunka ay yeelanayso salaada lagu tukado dharka uu ku sawiran yahay calanka Ingiriiska oo calaamadii macatabku uu ku yaalo amaba sawirra ay ku yaalaan afiiduna barakallahu fiikum. salaada qofku markuu tukanayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala hor istaagaya waxa markaa isaga mashquulin kara ama dadka ka dambeeyay ku daba tukanaya mashquulin kara ama ha noqdo sawir wax nool ama sawir kale ama calaamado fara badan waa inuu qofku iska ilaaliyo. rasuulku kaleey salaatu wasalaam sijaayadii ama maradii liidka lahayd ee Abu Jahm ninka la oran jiray uu lahaa markuu doonay inuu ku tukado calaamadeeda oo arkay rasuulku wuxuu yiri iga qaado iga kaxeeya taydii hore ay keena khushuucdu rasuulku kaleey salaatu wasalaam ila shani innaha alhatni an salati anifan waxay ku dhawaatay inay salaadeeda iga mashquuliso كما مشغولين رسولك لكن يكون دواتي من رسولك عليه الصلاة والسلام إنك محاض ما لا ينسى مريا هديو كويا الله صور وحنول قف أما حيوان حدشود ما بنانا كتاب كان إن شاء الله آداب تيو أخلاق ده قف كمسلم كور رمينا الثلاث وين نووي من دون وين وصل صعدها ومن باب اقتناء الصور بين غنس قف كينو صور هذه نقضي صور كيلا نقضي ما بنانا صورك waxa nafta leh way rasuulku kaleey salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qofka sawir gurigiisa dhigta dhaqda in lagu ciqaabayo malaa'iktii khayrku inaanay gurigiisa soo gelin la tadkhulu almalaa'ikatu baytan fihi kalb wala sura malaa'iktu ma gasho guri ay u joogo ama base waxa weeyaan sawir u yaalo qofka salaadiisa ma ansaxaysa qofkii ku tukaday mara sawir leh salaadiisu way ansaxaysa laakiin la shakka dambiga noocaas uu galay isagoo salaadii ku jira in ajarkii salaada uu ka heli la uu nuqsaaminayo saliibka waa mucatabku waa ka ay caabudaan nasaaradu yacbuduuna way caabudaan macbuudkooda waana arrin sidiisaba been abuur ka yimi oo in qaabka uu dhigay yahay nabi ciise loo daldalay ayaa arrinkan uu ka soo jeedaa arrinta noocaasina waa caqiido khaldan وإنه عدين مسلمين تنوحنا مسناهي والله إن أبو القرآن كإنه شاقي نبي عيسى للدليل وما قتلوه وما صلبوه من يدلين من يدلين وصدنا إليه نبي عيسى والود الدليل الصليب كويا له متشر تما أقول الله سبحانه وتعالى وبين تدوي رسول كان عليه الصلاة والسلام وحى أمري صليب كائن لبابيه ملك استول وعركه وعائشة واحد ترسل بخاري وريي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بنقض الصليب رسول كوح أمر كبحيي الصليب كمعتب كا إلا بابيو لبربوريو النبي عيسى بيرابور كاي كسميين مركا وسود دقو إلا مو دمانه إلهي بالرفعيو كرو قاضي وأنو سود دقي دونا ومدى نبي محمد بو كم نقون دونا شريعة نبي محمد بانو كوه قامين دونا ودى نبي عيسى نقع على ودي نقع مرحيسو والرسول رسول شيء إلهي كمدا وإن رميسنا والإيمان بالرسل كأركان الإيمان كأنه قلت له سوق لي لكن وحنا مسنا هايون شريعة دي إلهي سجوا كسود دتشيء إلا نسخي ولو بدلي شريعة النبي محمد وقفنا أنا وبنانين إنه الدين كدكت أما إلهي كعابد وما أنت مسلمين توال خلدا توس قالوا لما أورانا يقفك عرورتي دولك قالد اللي جاي سيد الضد فرب بدلوا حقوقالي أي شيئين دينta islaamka ka baxa bacid kuma tiraadee kristaan noqdo si kalun baa loo gaalaysiyaa waxa lagu oranayaa tawraad iyo injiil iyo zabuur iyo furqaan oo diintan islaamka ah soo ilaahay uu soo dajiyay ilaahay soo dajiyay maxaa diimaha ilaahay uu kala yaxanaysa tawraad soo diintii nabi muuse injiilna soo diintii nabi ciise zabuurna diintii nabi daawud soo islaamkuna soo diintii nabi maxamed maaha soo dhamaantood anbiya iyo rasuul ilaahay soo diray maxaad u kala yaxanaysaa walaalni soo maxaan u kala yaxanaya qaar halkan hargeysa la keenay oo waxbarasho loo keenay oo quraankii loo dhigay waxay la soo istaageen warniyo waxaan wadnaadeen muslimiinta nahay waa khalad maxay nabiyada ilaahay u kala yaxanay iyo diimaha ilaahay u soo dajiyay sida dhibka yar dadka loo gaalaysiinay sabab arag la uma kala yaxanayno عليه رسول كان صادري أي رسول كدنبيين صادري رسول كهرنا الرومية يري ضدك رسول كان دنبي وسوق قاري دمان تود نكوة تبي رسول كدنبيين الرعان وشريعة إلهي كسودة شيء إلهي كعابدان
arrintu maaha qabyaalad iyo kala xasho iyo kana waanu diidnay kana waanu yeelnay waan sida dadka muslimiinta waxa weeyaan arrintaasi ay u fahmaan marka maryaha saliibku ku yaal iyo meelaha kale ku naqshadaysan yahayba muslimiintu inay ku xaragoodaan maaha waa inay la dagaalamaan oo ay masaxaan wallahu a'lam بارك الله فيك وأحسن الله إليك